ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen gobolka Shabeellaha Hoose ku soo qabtay horjooga ka tirsan khawaarijta oo lagu magacaabo Salaad Macalin Cusmaan Cabdiyo Salaad Dheere. Howlgalkan oo si xeeladaysan loo fuliyay ayaa ka dhacay tuulada soo maray oo qiyaastii 5 kiiloomitir dhanka galbeed kaga beegan deegaanka Mubaarak. Ciidamada ayaa helay xog sirdoon oo muujinaysay in horjoogahan iyo xubno kale ay qorsheynayeen weerar arbushaad ah oo ka dhana shacabka iyo ciidamada ammaanka, taas oo keentay in si degdeg ah loo abaabulo howlgalka lagu soo qabtay. Intii uu socday howlgalka, ciidamada ayaa gacanta ku soo dhigay Salaad Dheere, halka horjoogo kale oo la socday laguna magacaabo Salmaan uu goobta ka baxsaday. Dhagarqabahan oo da'diisu tahay 40 jir ayaa ka tirsanaa khawaarijta Al-Shabaab tan iyo sanadkii 2009 isla markaana ku lug lahaa abaabulka iyo hagidda falal argagixiso oo ka dhana shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada ammaanka. Horjoogahan ayaa sidoo kale la xaqiijiyay in hore dhaawacyo uga soo gaareen dagaallo ka dhacay gobolka, gaar ahaan dhaawac dhanka garabka, waxaana uu ka mid ahaa horjoogayaashii khawaarijta ee maamulayay deegaanka Mubaarak ka hor inta aan laga xurayn. Howlgalkan guusha leh waxa uu ka mid yahay dadaalada joogtada ah ee lagu burburinayo shabakadaha Al-Shabaab, laguna weeqayo awoodooda hogaamineed ee ku aadan abaabulka iyo fulinta falalka amni darrida ah. Wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya, Mudane Axmed Macalin Fiqi, ayaa bogaadiyey ciidamada howlgalka fuliyay, isaga oo ku tilmaamay tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo amniga deegaanka, isla markaana lagu dardargelinayo dagaalka lagula jiro khawaarijta Al-Shabaab. Sidoo kale wuxuu ugu baaqay shacabka deegaanka inay xoojiyaan wada shaqaynta ay la leeyihiin hay'adaha ammaanka si loo adkeeyo xasiloonida loona dardargeliyo dadaalada dib loogu soo celinayo nabadda iyo amniga waara ee Soomaaliya. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka waxa ay sii wadi doonaan howlgallada lagu ciribtirayo khawaarijta Al-Shabaab laguna xaqiijinayo amniga iyo xasiloonida dalka.